waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaasa waxay yidhaahdeen laziness-ka iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay boys iyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6800 meelahaas ay noqotay qolana 5700 maanta waa kuwan yidhaahdaa xanuunada ugu tirada badan lee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhaahdaan maxay exercise la'aan exercise-ka la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato uun laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisaba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagii baa khatar gelaya walidaalika bay atabada maanta waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad iskeliyo ma macaan baad qabtaa ma sokor baad qabtaa ma kan baad qabtaa maalintii intaa soco intaa qabo yani waa wax qabo fadhigu markaa caqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jidhkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduunna uma fiicna lazinessku markaa nolosha meel laba wax kagama leh ee waxa meesha taalla qofka mu'minkii inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo weligaa ha moodin waqtigu ku dhaafay dadka barbaa isle faataka alqataarka sheegi jireen yani waqtigiiba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta laga yaabo dadka badhaysa oo maanta konton jirbaad ee waxbaad baran karaysaa dad baa konton jirraynta ku bilaabeen culimadii waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adigoo waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat as-saaca wa fii yadi axadikum fasiila fain istataaca an laa taquum xataa yagrisaha falyagrisha nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabmo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiilada waxaa la yidhaha geetimireedka yara la abqaalayo geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaadhsiin karta inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaadhsiin karta beer oo innaga iyadaan qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa unoo leenahay waan gaboobay soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowdaa soo maha soomaaligii markuu bini aadamkuba u xoog badnaa markuu gaadho ayuu yidhaahdaa waan gaboobo wax waliba way ga dhammaadeen bini aadamku caqliguu ka gaboobaa haddaad maanka ka gabowdo ayuunbaad gabowday inta kale waxbaad qaban kartaa inta kale waxbaad qaban kartaa saawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla almowt in furas jiro inta geerida ka horraysa inaad fursad haysato fursad wax lagu qabto inaad haysato waxaad yaraysanaysaa wax weyn noqda waxaad yaraysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraana inaad qaybtaa waa wax kula yar soo maaha waxaad isleedahay oo haddaan maalin kasta sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammayn haddaan sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammayn waxay dhahaan 12 sannadood waad ku dhammaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto hadda waa sadar hal sadar waxay dhahdaan waxqabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso waxa yaraantiisa ayay kuu muuqanin haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood haddaad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin haddaad tidhaahdo ma xaashi aan qoray baa buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taasa waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin
in wadaadaa wuxuu ii tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhegaysan jiray uuna cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhegaystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda intaad gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagta inta gurigaaga ku sii socota inta aad dhegaysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhegaysanayso marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahayna wuxuu ina leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniintow wahniyuu idinku dhicin ha niyad jabina hana murugoonnina idinkaa korreeya baa ilaahay tilmaamayaa haddaa kuwa mu'miniina tihin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa korraynaysaan xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu leey waka'ayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kaiir famaa wahanuu lima asaabahum fii sabiili illah wamaa dacfuu wama stakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin badanaa inta nebi qaatala macahu ribbiyuun maciise ay la dagaal galeen kuwo rabbi loo nisbeeyey dad ilaahay isu dhiibay oo may daciifin wixii dhib soo gaadhay may isdhiibin may isdhuldhigin ee waxay noqdeen dad walow markaa ha lagaba xoog batee wada camalkii ilaahay intay natiijada ka gaadhayaan ayuha alaxiba marka xadiidka kan wuxuu nebigu ku gebagabaynayaa calayhi الsalaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin oo wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam ha odhanin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay faina low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan albaabka shaydaankay furtaa oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu hadday nala joogi lahayn waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihin muslimiintaa soo dhimanaysa hadday iska joogi lahaynoo nala fadhihi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen labana dileen ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim waar xataa guryihiinna haddaa ku jirtaan intii wakhtigu ka dhammaatay geeridu way u iman lahayd baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala saa awgeed low waxay culammada qaar yidhaahdaan mawducu tacliimkuunbay ku fiicantahy ayaa la isticmaali karaa oo maalan jaamacad baad ka soo qalijabisay wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yidhi ila tale markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniskaa haysan lahaa low kaan haddaan jaaniskaa haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa waa litacliim qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa waddadan soo marayoo ma fiicne waxaad isku daydaa maxay kan kale inaad saas daraaddeed buu nebigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu markii ay uu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadyiga waday haddaad hadyidu waddo ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nebigu leeyahy hadyigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nebigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam culammada waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana oo waa maxay qul maa shaaa allaahu kaan waa inaad rumaysataa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima wixii tegey waxba kama beddeli kartid maadaama aanad waxba ka beddeli karaynin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah
إلهي وحو دون مويانه وحكالو إذنكو دوني كرتان مجرتو إن الله كان عليما حكيما بل وحدك على عالي صحابة لغاية ما خير كساكو جري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كسو كوبيا مركا حديثك لما انتيبا نبي عليه الصلاة والسلام وحينو الشيء مؤمنك واحترك نفعك له حوقيسي عقليسي iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhamaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cagsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno وإن أصابك شيء فلا تقول هدي وحسدي أتربتين نتيجة ودع ويدنا هأوران نبو نبي عليه الصلاة والسلام هدا صدا يسدا يلي لها لكن واحد هذا قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم